Bismillahirrahmanirrahim. Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran kanaalka Timacad Official. Muddo ma soo fariisan channelka maanta waxaan idin soo fariistay oon doonayaa inaan idinla wadaago waxa weeyaan run ahaantii arrin maalmahan baa baraha bulshada aad u haysatay arrintaas oo khusaysa inaan aynu ku naqaanay asturnaan runtii ahayd inaan badanka fiidiyoyada iyo muuqaalada ay soo geliso social media iyadoo xijaaban inantaas waxay caan ka ahayd social media waliba aaladda loo yaqaano TikTok hadaba waxa dhacday inantii waxa ku dhacday inay samayso khaladkaas oo ah in laga duubo inantii fiidiyogaas oo ahaa anshaxumo liddi ku ah xagga diinta islaamka iyo dhaqankeennaba fiidiyogaas aan rabin inaan hadda idila wadaago horto maqaldooma waa ilaahay cid kasta oo bini aadan ah oo aan qalad ka dhicin ma jirto ama ballan qaadi karta inaanu qalad ka dhici doonin ma jirto waxaan arkay hablo badan oo ku doodaya inantu way saxan tahay inanka fiidiyowga soo dhigay baa khaldan waa run labadooduba way khaldan waayo qofka ama jeclow ma jeclaan ama xiriirada ka dhaxeeyo ama wax kale yaan idinka dhaxaynba ma jirto qof loo baneeyay inaad tusto cawradaada waayo waxa tahay inan waxa tahay caar ma banaana inaad qof wuxuu doonaba aad cawradaada tusto haddaba hadday saa tahay wiilkan run ahaantii wuu khaldamay waayo wuxuu sharafteeda ku ciyaaray waxa weeyaan gabadh Soomaaliyeed run ahaantii waxaan leenahay walaal wax fiican ma samayn hal gabadho kaliya tan sharafteedu kuma ciyaarin run ahaantii waxaad ku ciyaartay sharaftooda gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan aan odhan karaa waayo inantaas sharafteedu ku ciyaartay sidoo kale hooyo ayay ahayd boqorad sidoo kale aabba ayay ahayd sidoo kale boqorad sidoo kale waxay lahayd walaalo ayay sharaftooda ahayd sidoo kale hablo ayay garabkooda ahayd oo la dhashay intiiba waxaan leenahay niyadda ka ciyaartay iyada sidoo kale waxa uma reeban mana fiicna in hablaha Soomaaliyeed saasoo kale loo galo walaashay Cayuuni waxaan leeyahay qaladkan u dhacay wixii dambe insha Allah waxaan rajeynayaa inaad iska ka taxadiri doonto qaladkana adigoo kaliya kuma noqon doonto tusaale balse gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan wuxuu noqon doonaa tusaale ay ku cibra qaataan waxa ku dhacay walaashood way arkayaan iyaguba waxa jirta sidoo kale dad fara badan oo faafinaya ceebta walaashood horta ma fiicna in ceebta la faafiyaa bilaaduna ma jecla mana jiro qof jecel maanta in ceebtiisa banaanka lagu wadwado ilaahayna run ahaantii ma jecla qofka ceebta faafiya ceeb kasta nooc kasta ha ahaatee waxa fiican la asturo waliba tani waa inan waa caar wayna la dhalatay wayna dhashay wayna dhaxday wayna dhalnay ma fiicna in la faafiyo waxa jira haddaba dad siyaabo kala duwan fiidiyowga u adeegsanaya dad iyaga ay wax ka dhaxeeyaan oo laga yaabo in cadowgooda kale yihiin iyo qolo youtuberle ah doonay inay shilimaad ka sameeyaan war waxaan odhan lahaa walaalayaal lacag wax weyn maaha waa xaashiyo wana la helaa wana la waayaa wax walba waxa noo qalaysan sharafta hablaheena Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa hala ilaaliyo hablaha sharafta hablaha Soomaaliyeed walaasha Cayuuni waxaan leeyahay hadda way dhacday mar labaad yaan dib u dhicin waxaas oo kale waxaas leeyaan noqon wax caqabad kugu reeba ama saameyn kugu yeesha la soo dhaafay lama idhaahdo waxaan sidoo dhacay mar hadduu dhacay oo dhacday weeyaan waxaan leeyahay hore soco waxaan leenahay garbahaagaan taaganahay walaashaan naas wada jaqnaay hayga niyad qaarmin ku nool waan kula dhashay nacabka hawreecin naftayda nalkeeteena u saahaanin gabdhaha Soomaaliyeedna iyagana waxaan kula talinayaa inaanay waxaas oo kale iyaguna falkaas oo kale ku dhaqaaqin wiilasha Soomaaliyeed ee caadaystay inay faafiyaan ceebta haweenka Soomaaliyeedna waxaan oran lahaa la talin lahaa war la dhowro sharafta haweenkeena Soomaaliyeed
anna weli dadku ma shaqo dugsi aanu joogin allah ayo haweendaa mar hala dhawo